بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha adna aadan gudoomiyaha gobolka Maroodijeex taliyaasha ciidamada marti sharafka kale ka soo qayb gashay munaasabadan ardayda shaqo qaran saraakiisha kulliyadan Abdullaahi Askar iyo Haragwaafiba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudana madaxweyne xafladan hadda aanu joogno ee shaqo qaran loogu xidhayo waa wax ugubo oo madaxweyne aad u bilowday waana wax loo baahnaa adduunyadu iskayga waxay leedahay shaqada qaranka wadamo badan baa leh oo ay u noqdaan ciidamo kayda waxaana loogu talagalay oo kale inay ku adkaadaan oo ay wax ku bartaan ardaydu ciidamada inta badan historyga marka dib loo raaco raggii madaxda noqday inta badan waxay u badnaayeen madaxweynayaasha noqday rag ciidamada soo maray waxay taasi keenaysaa adayg ninkaas uu adkaysan karo dhibaatooyinka ka hor iman doona mudane madaxweyne 3 bilood ka hor ardayda halkan joogta sida ay maanta yihiin ma ahayn dadka shacabka oo iska ahayd maalintii dhaweyday marayeen May 18-keegii meelo badan oo war ka helay aad baa loola yaabay waa laga khalkhalay wax la yiri ciidamada inta leega Soomaaliland samaysatay halis bay yihiin baa la lahaa mudane madaxweyne markii halkan salaanta marayeen waxaan hoosta ka jeclaysay intaas inay ciidankayga ka mid noqdaan ayaa sii jeclaystay asaatee wax weyn oo kale noo qaban doonaan insha Allah tacaala waa dadkii cilmiga ee mustaqbalka dalka hogaamin lahaa weeye muddadii madaxweyne aan halkan 3 bilood ka hor kulliyado badan 3 kulliyadood baa halkan ku yaala mid saraakiil xigeenka wax ku bartaan oo Haragwaafi la yiraahdo mid kulliyada saraakiisha Abdullaahi Askar loo magac daray iyo kulliyada Dibooga saddexda kulliyadood ayaa ku yaala dugsiga Dibooga baan u jeedaa waxaanu xidhnay wax alla wixii tababar ahaa ee ciidamadu ay gali jireen ayaanu xidhnay iyaga dartooto si ay wax u bartaan iyagu macallimiintiina waxaan xaggooga aan u jahaynay way istaahilaan madaxweyne oo waa raggii annagana bedeli lahaa ee waddanka hogaamin lahaa weeye waxaan madaxweyne muddada ay joogeen si ay macallimiintu report noogu soo gudbinayeen aad bay u anshax wanaagsanaayeen wax dhibaato lagama soo sheegin intaan arkayna aad bay wanaagsanaayeen nidaamkooda akhlaaqadooda iyo xirajoogooda wax lagu farxo waa rag mutacallimiin cilmigu ninka doqonkana nin buu ka dhigaa ninka ragga laba nin buu ka dhigaa marka waxa weeyaan waa cilmiga ayaa saa ka dhigay oo madaxweyne muddo yar Dibooga 9 bilood iyo 6 bilood bay noogu qaateen laakiin muddo yar bay ku qaateen inay gaardigii bartaan oo askarta la mid noqdaan mudane madaxweyne waa marxalad taariikhi ah oo intaas oo dhalinyaro oo 1200 ah oo jiil cusub yahay inay mustaqbal yeeshaan nation-kana ku soo biiraan shaqaalana ay noqdaan maanta 400 ee la qaadanayo la sheegayo waa nasiibkood waana nasiib badan yihiin inay ku soo hagaagaan waqtigaagii oo aad madaxweynaha adu ahayd inay ku soo hagaagaan iyagana waa nasiib ay yeesheen
madaxweyne aad baan ugu mahadnaqayaa macallimiintii kulliyadani ee isku taxallujisay ee ku dadaashay in si ay ardayda u hayn lahayd waxa kaloo aad ugu mahadnaqayaa madaxweyne oo annaga waliba xoogga sii saaray sidii nabadgelyadooda intaasoo jaamiciin nabadgelyadooda sida aanu oran lahayna aad baan ugu dadaalay waana ilaahayna uu nala garab galay alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyagoo nabada iyo inagoo wada nabada inaan haddana mar labaad maalintii aad furaysay maalintii ku xigtay ood xidhideeda maanta inaan halkan isku nimaadno madaxweyne waad mahadsantihiin way mahadsan yihiin waanaad mahadsantahay madana